markaan ogaaday dagaalkiina uu dhacay 91kii waxaan fahmay in dhaqankeeni uu burburi rabo waxaan bilaabay inaan alaabta hidaha iyo dhaqanka aan aruuri 91kii sababtoo waxaan fahmay inta wadanka dagaalka socday intuu soo hagaagay intaasoo dhan generationka inaysan waxay ku daydaan aysan heli karin ayaan fahmay hadda waxaan fahmay in laba generation dadkii markii 91kii dagaaladii ay dhacayeen inay jiraan 5 sano maantana 35 jir ay yihiin aysan dhaqankeena aqoonin ayaa ii soo baxday waxaa jirto ilmihii ay iyaga dhaleen nafsadooda inay dhaqankii aqoonin sidaas daraadeed 91kii ilaa iyo hadda ayaan dhaqankan aruurinay in ka badan oo guriga jirto marka dhaqankii waxaan u aruurinayay markii dawladda Soomaaliya ay hagaagto oo wadankeena uu hagaago oo madxaf la furo in aan madxafka ugu deeqo ayaan aniga go'aankayga oo ahaay maanta ayuu Ilaahay ii suurtageliyay inaan madxafka qaranka Soomaaliyeed aan imaado oo aan ugu deeqo oo waxa laga yaabaa inaan qofkii ugu horeeyo imaado oo alaabtan u keenay inaan aniga maanta aan ahay marka wax alaabtan meesha taalo oo qaarkood ay 100 sano jiraan oo qaarkood ay ku sii xigaan oo waxyaabo kala duwan ay meeshaan hortiina yaaliin iyo in ka badan oo nahay insha Allah on keeni doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ugu deeqay madxafka qaranka Soomaaliyeed waxaan rabaa Soomaalida meel kasta ay ku nooshahay gobolka Banaadir iyo gobolada Soomaaliya oo dhan in madxafka qaranka Soomaaliyeed ay ku yaalo caasimadda Soomaaliya in ay keenaan macnaha ay say dhaqanka caruurteena iyo dadkeena dhaqanka ka dhumay ay u ogaadaan ama ay dib u soo xasuustaan si dhow madxafka ay ugu soo booqdaan waxaan ka gudoomeynaa muxuu ahaa agabkan loogu talagalay madxafka in lagu bilaabo mustaqbalka Soomaalidana ay wax ku bartaano marka aad iyo aad u mahadsantahay waxa waaye taariikh waayo waxaan filayaa in bulsho Soomaaliyeed tiro badan ay ku dhageysanaysa ay kugu dayan doonaan iyagana waxa guryahooda yaalo iyo waxa muxuu ahaa ee gacantooda ku jiro inay ku soo celiyaan madxafka alaabtiisa ilaa waxay gaaraysay ilaa iyo 20,000 oo item ilaa haddana wax lagama hayo laakiin waxa waaye waxay ku maqan tahay wadanka gudihiisa ay ku maqan tahay dad Soomaaliyeed ayaa gacantooda ku hayo marka waxaan rajaynaynaa baaqan ugu jeedinaynaa in ay alaabtii ay hayaan nin wali waxa uu hayo inuu madxafka ku soo celiyo si muxuu ahaa jiilasha dambe ay dhaxal reeb ugu noqoto oo dhaxalkaasi bulshada dhan ay ka wada faa'iideysata